Shantii xubnood ee golihii sare ee kacaanka waxay ahaayeen Maxamed Siyaad Barre, Salaad Gabayre Kediye, Maxamed Cali Samatar, Xuseen Kulmiye Afrax, iyo Jaamac Cali Qorsheel. Maxamed Siyaad Barre wuxuu ku dhashay gobolka Gedo, gaar ahaan deegaanka Shilaabo oo xilligaasi hoos imaan jiray xuduudka Soomaaliya iyo Itoobiya. Isagoo wuxuu ka tirsanaa ciidankii xoogga dalka, wuxuuna ka gaaray darajada sare ee guute. Markii afgembigu u dhacay 1969 waxaa loo doortay guddoomiyaha golaha sare ee kacaanka, wuxuuna noqday madaxweynihii Soomaaliya. Wuxuuna dalka u qabtay dhisidda nidaamka militariga ku dhisan iyo isku dayga inuu hirgeliyo hanti wadaagga cilmiyeysan. Waxa uu xoogga saarayay waxbarashada iyo caafimaadka bilaashka ahaa, sidoo kalena wuxuu dhisay wadooyin iyo kaabayaal dhaqaale. Si kastaba ha ahaatee, markii dambe xukunkiisa wuxuu isu bedelay mid kaligiis talisnimo ah oo caburin iyo dagaalo badan horseeday. Ugu dambeyntii wuxuu dalka kaga baxay dagaalo sokeeye, isagoo ku geeriyooday magaalada Lagos ee dalka Nigeria 1995. Salaad Gabayre Kediye wuxuu ku dhashay magaalada Muqdisho, wuxuuna ka mid ahaa saraakiishii ugu aqoonta badneed ee ciidamadii Soomaaliyeed. Wuxuu waxbarashada iyo tababarka ciidanka ku soo qaatay dibadda, gaar ahaan Midoogii Soofiyeedka. Gabayre wuxuu ahaa maskaxdii iyo abaabulihii kacaanka, waxaana looga yeeray aabbihii kacaanka. Wuxuu dalka u qabtay inuu hormuud u noqdo afgembi bedelay nidaamkii rayidka ahaa. Laakiin sanadkii 1972 waxaa lagu eedeeyay inuu abaabulayo iskuday afgembi cusub, waxaana lagu xukumay dil toogasho ah oo isla markaana lagu fuliyay. Sidaa ayaana dunida looga musaafuriyay Salaad Gabayre Kediye.